waxaa suuragal ah inaynu ku aragno calaamadan inta badan wax soo saarka warshadaha. haddaba maxay tahay calaamadani waase maxay faa'iidadeedu? astaantan oo u muuqata qaabka baakidkan oo kale waxay ka kooban tahay xariijimo sida tiirarka oo kale kor u taagan oo midabadoodana caddaan iyo madow isugu jiraan, kuwaasoo hoostana ay ka raacsan yihiin nambaro. waa astaan ama calaamad xambaarsan dhowr macne oo ka turjumaya shirkadda badeecadda soo saartay, waddanka laga leeyahay iyo nooca badeecaddaasi tahay. waana calaamad la isla og yahay oo ay isticmaalaan shirkadaha soo saara ilaa 1000 badeecadood iyo ka badan. waxaana tusaale aynu calaamadan ku sharaxno inoo noqonaya tan horteena taalla oo ay 3 nambar ee u horeeya u taagan yihiin dalka shayga lagu sameeyay, iyadoo 4 nambar ee ku xigaana tilmaamayaan shirkadda shayga soo saartay. waxaana ku xiga 5 nambar oo iyana u taagan nambarka badeecaddaasi tahay, halka nambarka u dambeeya oo ah 1 nambar oo keliya uu isna yahay nambarka gaarka ah. calaamadan waxaa isticmaalkeeda laga bilaabay dalka Mareykanka bartamihii qarnigii 20aad. xilliganna waxaa loo isticmaalaa qaybo ganacsi oo kala duwan sida tigidhada diyaaradaha, shineemooyinka iyo xitaa kuwa tigidhada lagu galo garoomada ciyaaraha. calaamadan waxay dadka u leedahay faa'iidooyin badan, taasoo siinaysa macluumaad badan una sahlaysa waqtiga ama u tashiilaysa, sidoo kalena u damaanad qaadi karta kalsoonida ay shayga ama badeecadda ku qabi karaan. inta badan calaamadani waa mid kantarooladeeda iyo fasiraadeeda ay gacanta ku hayaan hay'adaha qaabilsan la socodka badeecadaha iyo agabka soo gelaya waddanka, kuwaasoo calaamadda ku furaya shucaaca laysarka, kadibna muuqaalka soo baxa oo noqonaya laymanka madmadow oo keliya koobigooda u diraya kombuyuutarka, halkaasoo ay ku samaynayaan baaritaan kuna ogaanayaan in badeecaddaasi tahay mid dalka la soo gelin karo. sidoo kalena ay xogo dheeraada kaga helayaan magaca shirkadda soo saartay, cadadka ama miisaanka shayga iyo wixii kale ee macluumaad ee ku saabsan badeecaddaasi.